munaasabad lagu taageerayay musharax baarlamaanka Sweden iyo xisbiga Fenester Elias Xasan ayaa lagu qabtay xaafadda Rinkeby ee Soomaalida u badan tahay. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Stockholm iyo waaxigeeda. waxaa ka hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabada. waxaan ka hadlaynaa waa doorasho weeyaan. anigana waxaan ahay wadaad baa liido masaajid baa ka socotaa meesha la soo istaajiyay. marka diinta islaamka waxaa laga yaabaa inaad maqashaan maalmahan dad dhahaya doorashadu waa xalaal iyo waa xaaraan iyo noocaas oo kale ah. doorashadu waa nolosheenna weeyaan. doorashadu waa nolosheenna weeyaan. Min målet var att höja valdeltagande för i tiden. Nu jag säger rösta på vissa partier. Varför? qodobka saddexaad ee ugu dambeeya ee aan Elias ku dooran Elias marka qodobkii hore xisbiga uu ka soo baxay xisbiga Fenester Partiyeed way caddahay siday u codeeyeen baarlamaanka siday uga codeeyeen way caddahay wax muuqda weey marka shuruudii xisbiga uu bixiyay shuruudii labaad ee Elias ee ahayd nin ka soo bixi kara hawshan ee ciyaarta socota fahmi kara ee systemka politiga systemkeeda fahmi kara taana uu ka soo baxay Elias waxaan u baahanahay matalayaal xuquuqdeenaas ilaalin kara fagaarayaasha siyaasadda lagu go'aamiyo istaagi kara xuquuqdeena ka sheegi kara baahiyada gaarka ee aanu qabnana ka muujin kara meelahaas eega fagaarayaasha seeda waxaan isleeyahay Elias Xasan dadka ugu mudan hadaan dhihin waa qofka koowaad waa qofka labaad waa nin dhalinyaro waddankan ku dhashay waa nin dhalinyaro waddankan ku bartay waa nin dhalinyaro fahmi kara retoriga siyaasadda ama retoriga waddankan looga hadlo nin fahmi kara waa musharax xildhibaan Elias ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay inay dadka codeeyaan isla markaana xisbigooda la taageeraan sidoo kale wuxuu faahfaahiyay waxyaabaha xisbigooda ugu fiican yihiin xisbiyada kale ani waxaa ku dhashtay xaafadan Husby la yiraahdo markii reer Husby ah hooyaday gadaal fadhisaa Runa Amin Usman khayr Allah siiyo dadka maamooyinka badan way yaqaanaan waalidkay waxay imaadeen waddankan 1989kii aabana wuxuu dhigan jiray jaamacad ruushka oo dhakhtarnimo ka bartay wuxuu geeriyooday 12 sano ka hor Allah u naxariisto in yaraarweena ka hadla aabi iyo familkayga ana waxa ku soo barbaaray guri oo mar walba laga shaqeeyo danta guud waxaa degnaan jiray 3 sano Soomaaliya liigayay inta Soomaaliya adin ka hor aab wuxuu ka shaqeyn jiray meeshan magaalada Stockholm nin dhakhtar Dr. Jakob Leirado Eritrean oo la shaqeyn jiray markii dambana wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliya aado oo dadkiisa xagaas joogan wax u taro wuxuu ka shaqeyn jiray isbitaalkan la yiraahdo Al Hayat oo ku yaalo wadada Al Kamiin marto markii dambana wuxuu ka shaqeyn jiray isbitaalka xooga dalka ana si fiican uma aqaan magaalada laakiin gudaha magaalada ka jirta isbitaalka xooga dalka waxaana ogahay anoo yar in dad haweenimo ay guriga ugu soo garaaci jireen marka Soomaalida dignaay aaban inuu bixi jiray hataa mararka qaarkood shaqadiisa mushaar ma aysan siin jirin markaas ay weydiiyay aaba saa dhacday waa shaqeynaysaa haweenkii guriga la garaaca waa bixi se ku dhacdina macnaa waxaan dhan asuubinaysid qofku mushaar u baahan yahay wuxuu yiri mushaar muhiim ah waxa muhiim ah dadkaaga inaad wax u tartid aa ka muuqatid markii guri saas ah ka dhashta la socda qof walba waxa saaran macnaha bas maxaa la yiraahdaa mas'uula saaran oo ah dalka degan yihiin iyo dalka ka imaadaan inay wax u taraan shaqaan hadii la yiraahdo waxaan ka shaqeyn jiray urur la yiraahdo Hyresgästföreningen waa ururka kiriistayaasha ina garanaysiin jeclahay 5 sano meeshaas ka shaqeeyay markii dambe waxa ka shaqeeyay ururka duqooshinka la yiraahdo PRO aan Quraan Nasrix Organisation 1 sano ka shaqeeyay maanta hadda waxa ka shaqeeyaa urur la yiraahdo OBF waa macnaa wacyigelin iyo bulshadin aqoontooda la kordhiyo ka shaqeeyaan marka ururkaas aan ka shaqeeyaa ku dhawaad 1 sano ku jira xisbi ana ku jiro ideal tuwaay macnaha utanför arbetet waqti geliya waxna kama helo oo dhaqaale ahaan waxaana ku jira xisbigan waagi oo Cabdiraxiin walaalkay Allah u naxariisto oo active ahay 2010 ka soo galay 16 sano xisbigan meelamka ahay waxaana go'aansaday in xisbiga toos u galo
lixdan sano ugu dambeysay lixdan sano ugu dambeysay waxaan ka mid ahay guddigiisa sare party stewardship sidoo kale saddexda sano ugu dambeysay waxaan ka mid ahay 7 qofood oo xisbiga dhan maamulo waddanka dhan ka maamulo waa aniga gabadhana hogaamisa Nuushi Dadgostar iyo 5 qofood kale marka guddiga ugu sareysa aan ka mid ahay sidoo kale saddexdan sano ugu dambayso waxaa la xil saaray inaan ahaado qofka oo wakiilka ah xaafadaha Faaruqan la yiraahdo xaafadaha ajaanibku badan yihiin marka saddexdan sano ugu dambaysa xaafado fara badan aaday Göteborg waa aaday Örebro Stockholm xaafado kala duwan dadka la kulmay su'aalooyina weydiiyay maxaa doonaysiin xisbigeena inay suubiyaan noloshadiina sidee loo kordhin karaa oo wax laga qabsan karaa xisbigeena maxaa ka aaminsantiin marka su'aalooyin fara badan weydiiyay taasina waxay ku dhamaatay in raportkan aqoon raportkan waa 20 qodob soo saaray Xaaji Faarax Qaralaasi uu sheegay 20 qodob oo meeshan ku qoran hamsiideena ka arki kartiin bansbarid.se waa 20 qodob xisbiga ay go'aansadeen inay macnaha ay ogolaadaan ka shaqeeyaan marka saabir cilmi warbaahinta isfi Soomaaliya Stockholm